مشاهدين السويال وحنو هالكان السجونمي درانا ونسوق جاري إن القتل بيجي كوري هتبالو هيلي حكومة السيناء وحن موليني مد صور نارين السج بيد السويال وأقامي سوق عنيسة لكن وحن نقطة مد كحطيهره كما إحنا وحنو لنا هاي ما عنتميو كوما عنتميو كني وحكنا باربارا ولنا كمان وحكنا باربارا ليكشيلو وحنو لنا ليكشيلو هانتدي أمد أول بعد هويستي أو عشبتي أو لوكل كياد ينكر ما ركوش مني إلى المانتا كسر نقطة سويال شيء كي يجي يوميا نافذة كسر نقطة وأنا سيبدرو وحبربوري دورا قريها على عاد يبقى أنا كعل عاد طالع بربوري دورا أنا وحنا كتعادل معايا تاسان ولا ليكشيلا سلاسان مشاهدين جمعية السويال لمقالة بربرة أي ساكا يصبح بلارن أو أي كسميين حرمتو ده مقالة بربرة كجاه الله أرهن أي عاد وقصور شيدان أو أي كؤديين برصاب كقبل كساحل محمود علي هايست الرمح يجنع صدها دابشيل أو أي شيئين إنه يبكي سدون يبريهم بقى ين مقالة بربرة وحنا ساكا مشاهدين xaruntaasi isugu soo baxay ay si cad uga soo horjeesteen iibka la doonayo in aqalkoodaasi laga iibiyo ganacsadaha daabshiil waxaana ugu baaqeen xukuumadda Soomaaliland mujaahidiinta Soomaaliya oo u badan qaar naafa iyo qaar dhaawacyo kala duwan ka soo gaadeen dagaaladii ay kula jireen taliskii kaligii taliyihii Maxamed Siyaad Barre inay xukuumaddu faraha kala baxdo aqalkaasi oo ay sheegeen inay waxantiyada dalka ka hayaan mujaahidiintu aqalkaasi iyagoo intaasi ku daray inay aqalkan eeganayaan caruurta mujaahidiintii ku shahiiday kula nafwaayay dagaalkii dalka lagaga saarayay ciidamadii kaligii taliyihii Maxamed Siyaad Barre waana kuwan mujaahidiinta oo ka hadlaya aqalkoodan la iibiyay iyo sida ay uga xun yihiin iyo waliba sida ay uga soo horjeedaan wixii ay cambaareysay shalayto iyo wixii ay ka hadlaysay bay maanta xalaalaysay waxaana dilay haqajis guriga Sooyaal ah oo maalin walba la leeyahay ka soo dareera nin baa laga iibiyay taasoo ay wado maamulka magaalada ka jira waxaana laga iibiyay ninka dahabshiil laga haddaba waxaan leenahay fariinta dirayna waxa weeye adiga waa ku digayna halka fadhiya naafada iyo waxa iska gandooda maanta ilaahda kulladnaysiyo nibcaad haysataay inaad nabcadaada ku xamdi noqoyaan laga raacine oo aanay taas ka qabanine nabcadaada ku waxa ku tumanin dadka jilicsan dhulkuna waa badan yahay meel kale uga baydh baan ku leenahay assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxa isku yimi mujaahidiintii iyo dadkii ay dhaleen oo imika dhowr iyo 20 jir mid oo marayo waxa isku kaya keenay dareenkii kiciyay oo runtii gurigan oo imika ayna arrinka ka iibiyay dahabshiil marka waxaan moodaynaa horta inuu naga haray oo dahabshiil haray laakiin dawli waa ka soo socda waxaanu leenahay ninka odayga horta wajigiisa isma naqaano laakiin waa nibcaad haysataa waad wanaagsan tahay wadankaba waad dhisatay dadkan waa wada curyaamiin waxba ma hayaan alxamdulillaah rabbil caalamiin bay hadana ku jiraan aqalkana adduun ba hayaan waxaan u sheegaynaa oo mar labaad leenahay annagoo moodana harayna naarta u dhamaynay hantidaada ha iska gelin meelaan ku suurtagelin mujaahidiinta Soomaaliya waxaanu halkan isugu nimi daraana ونسوق جاري إن القتل بيجي كوري هتبالو هيلي حكومة السيناء وحن موليني مد صور نارين السج بيد السويال وأقامي سوق عنيسة لكن وحن نقطة مد كحطيهره كما إحنا وحنو لنا هاي ما عنتميو كوما عنتميو كني وحكنا باربارا ولنا كما وحكنا باربارا ليكشيلو وحنو لنا ليكشيلو هانتدي أمد أول بعد هويستي أو عشبتي أو لوكل كياد ينكر ما ركوش مني إلى المانتا كسر نقطة سويال شيء كي يجي يوميا نافذة كسر نقطة وأنا سيبدرو وحبربوري دورا قريها على عاد يبقى أنا كعل عاد طالع بربوري دورا أنا وحنا كتعادل معايا تاسان ولا يديك شيلا سلاسان جمعية المشاهد السويال هذا تاريخ عارض كشكيه حرون كان جمعية المشاهد السويال وحويان حرون عن دولة يعيد كلتورا عن وقت غيرها كين contribution عن وسكاور لي أيها وحن قصة بين 2 iyo 20 مهردود وكو هريرسان جمعية المشاهد
dabadeetna si inkamka waashmaanka iyo biyaha iyo leerka jumciyadda looga bixiyo iyo afarta shaqaalaha waxaa dhacday in iminka soo gaadhayo waa la iibiyo dhiigshiid baa laga iibiyey dhiigshiid ayaa laga iibiyey waxaasna arintee laga badan maskaxdayada geli waayey ayuu arrinkaasi noqday sidaa awadeed waxaa halkan iminka isugu yimi agoomihii iyo naafadii iyo mujaahidiin ku abtirsanaysa jamciyadda mujaahidka sooyaal dabadeeto iyo ganacsatada yaryareed ee loo sameeyey maxay dhahaayeen meelaha iyada aan uga sameynay sidaa awadeed waxaan u sheegaynaa xukuumadda oo aanu fariinta u diray iyo dhiigshiil in ay arrinkaa dib uga noqdaan oo arrin aan la yeeli karin haddii taa lagu kaco oo la xoog lagu noqoniyana waxaa iman doonta cawaaqaxuunta maanta la joogo ka xun waxaan anigu leeyahay ninka sooyaal iibiyey waa nin xaramka iibiyey xaska nin iibiyey wuu ka daran yahay midna waxaan leeyahay madaxda berbera had iyo jeer loo soo diraa berberu si ay culyaaminaydin bay ka shaqaysaa ee wax kale kama shaqayso iyadaa baayacda oo iibinaysa mid hore iyo mid dambeba waa ismadhaanta weeye waa siidoo kulliyana mid baan runaya shalay waxaad lahayd hantidii ummaddaa la cunaya waxaanaa la cunay haamil baa la iibiyey waxaa la iibiyey hindiya laykii o dhan baa ayaad sali lahay maantana adigii ayaa iibinaya oo khalyaan lagaa joogaa waxaan leeyahay saddexda maalnaawi ayuu ninku maamahay gabadh baa tii saddexda maalnaawi miyaa taqaani waddankan wax waddanii maba joogaan waa saddexda maalnaawo haddii arrimaha dib looga noqon waayana wax aan la filayn ayaa iman doona waxa aanu lahayn waa xusbiga sanamta waa kulmiye waa caynkanba ayay dadku lahaayeen isbeddel baa la doonaya iyo waxaana la doonayaa baa la dhahaa maanta dhan walba waraabaa ka soo baxay dhan walba reerku waa ka dayacay oo meesha degan reerkan reer somalilan ummadda somalilan la yidhaa dhan walba way ka dayacanto dhan walba waraaba ugu soo baxay kuwa xukuumadda haya ayaana waxaa wada odayaafka mujaahidiinta gobolka saaxil waxaan leeyahay ninka layaa daabshiil xukuumaddu aana soo kala gaadho in badan baanu marka dhow iyo 10 sannadood ayaanu saysanay waxaan leeyahay la soo kala gaadho daabshiil waxaan leeyahay ilaahay ka baqa daabshiilo maanta waad wanaagsantahay nimcaad ku jirtaa ninka ugu lacagta badan baa tay maanta somalilan war gidaarada sooyaal iyo naafada meelaha jiifa ha isku kicinin halkaad wax ka tari lahayd ee adigu aad soo dhaweyn lahayd ee meesheeda u dhisi lahayd ayaad adig leedahay waan iibsaday war ilaahay ka baqa iibka laga hadlayo iibkan baryaha waa maqlay waxaan moodayay waxaan jirin oo qof baa kulli imaan iyo sooyaal baa haddii maskaxda kuma hayn inay dhex kartay imaan moodayay haddii anigu magaca mujaahidiinta ka mid oo ku hadlaya anigu waxaan taagan cidna anigaan taagan hebel iyo cidna odhan cidna yaa la baayin dhulna yaa la baayin dadkan wuxuu baahan wax tara wax waxyeelo ma baahna naafadan iyo aqoontanina kuwii ka dhintay xafiiqadooda adeegyo u baahan yihiin wax buulka ku jiraan ka iibiya uma baahna wasalaamu calaykum dadka halkan sooyaal hortooda ku ganacsada oo ah 220 guri anagoo ah oo lacagteedii gelinoo ka dhisan maanta in la yiraahdo walaal anagoo hantideedu ku jirto ma ogol waxaan u sheegaynaa dahabshiin inaanu hantida meesha ku jirta waa 220 guri oo dadka ku ganacsada hal shakhsi iyo 220 meheeradood oo ku shaqeysta meesha inaanu lacagtiisa ula badheeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saharbar waraas ka kacay raashin gurboodka watankaana madaxa uu jecel bindooda bulshadana inuu baro boqol lagu baandhayn dhagax buur oo meel la dhigo hadaba beenbeena bulshada bilan iyo barnaamijka macaaleynta birta dhagaxa baarka ariga baabka haama beesada kolka ay siisatay buus loo waayay sooyaalnay baaxo banaanta alla baabin dhanka bariga beeraha bixiyo gobolada buuway tii khabar bara haystay beeri reebay reeg ma aha wara saabka iyagu meel kama baydo sooyaalnay baaxo banaanta ganacsatada daabshiil ayaa ilaa iyo xukuumadii hore waxa uu si weyn ugu warwareegayay iibka gurigan jimciyadda sooyaal ee magaalada berbera iyadoo waqtiyadaasi oo dhanna ay si aad uga soo horjeedeen maxamed cabdilaahi soo fadhiiste ood weyne mayuus magaalada berbera.